السلام عليكم ورحمة الله. maanta waxaa ka jawaabaya su-aal shalay soo gaartay taasoo ah maxaa ka faa'iideysaa kiilada iskugu dareysaa 70 kiilo ayaa ka tagay ilaa 90 ku dhawaad ayaa tagay mar dhow saa ogeedeen mar dhowna waxaa rabaa inaa wax hoos u dhaco mar qofaa ku wareera wax uu kala fahmi waayo sababta maxaa koodir iskugu dareysaa koodir marka labaadna isku soo dhimaysaa maxaa faa'iido tahay koodir horta waxaa muhiim ah inaa baratid jirkaaga siduu u shaqeeyo mar badan ayaa ka hadlay midaas dadka isku mid ma ahan qof walba jirkiisa ilaahay u uumay si khaas ayuu jirka bini'aadanka u shaqeeyaa qof walba jirkiisa si khaas ayuu shaqeeyaa oo aan kala duwanahay soo marka aan jirkeyga waxa ku shaqeeyo wax Biochanical Caring la dhaho Biochanical Caring hadaa ka hadlo waxaa waaye inuu qofka kiilo isku daro kiilooyin badan isku daro ama kiilo isku daro kadib markuu meeshuu rabo gaaro hadhow uu arko inta kiilo muruq ay ku soo darsantay inta kiilo baruur ku darsantay inta kiilo biyo ku darsantay kadib biyaha iyo baruurta iska dhimo muruqaha laaro qorshahaas waa qorsho weligiis la sameyn jiray dadka natural bodybuilding loogu talagalay dadka daroogada ay isticmaaleen steroidka waxaas aan isticmaalin loogu talagalay inay sameeyaan sababtoo qofka naturalka way adag tahay inuu 6 bilood gudaheeda muruq badan u dhiso sababtoo ah hadaa cusub tahay gymka cusub tahay ma sheegin laakiin gymka cabaar qaadaysay way cusub tahay way adag tahay inaa muruqa dhistid 6 bilood sababta Biochanical Caring loo sameynaa waxay tahay 6daas bilood ama 4ta bilood ama 5ta bilood waqtiga adiga kiilooyinka isku dareysa inaa cunno badan cuntid jirkaaga cunno badan cuno si kiilo ay kugu darsanto jirkaagana u weynaado soo haddii aad natural tahay waa adag tahay saa sheegay inaa kiilo kugu darsanto kiilo muruqa keliya macquul ma inaa 6 bilood dhahdid 6daas bilood waxaa isku darayaa muruqo keliya baruur dhan iyo fuuleyso macquul ma way adag tahay haddaa natural tahay waa haddaa daroogo isticmaalaysid steroid isticmaalaysid way fududahay sababtoo ah steroidka awood badan ayay leedahay mar badan ayaa ka hadlay steroidka midda labaad waxay tahay strength waxaa la strength inuu qofka awood yeesho gymka markaad joogtid video ayaan i tusin doonaa marka koodir intaana kiilo isku darista bilaabin markaa kiilo isku darista bilaabay awoodda farqiga u dhexeysa gymka markaad joogtid kiilo qaadistaada aad ayuu badnaanaysaa wax culus ayaa qaadi kartaa marka cunno badan cunaysidna jirkaada awood ayuu yeelanaa midaas waa wada ognahay so gymka markaad joogtid awood badan ayaa yeelanaysaa strength wax la dhaho midda kale saddexaad maxaa ka faa'iideysaa inaad kiilooyin yar joogtid ilaa macnaheed jirkaaga inuu shareeri dhahaado murqahaaga meel walba goonaadaan laakiin kiilooyinkaaga ay yaryihiin wax culus aadan qaadi karin midda saddexaadna aadan tartan u soconin sababto ah qofka go-an jirkiisa zaid ugu go-an yahay waxaa loogu talagalay inuu tartan aado dadka badankiis markay isgogooyaan waxay aadaan tartan ama samar ay isku diyaariyaan ama aroos ay isku diyaariyaan dadba si u ahaadaan laakiin maxaa ka faa'iideysaa sanadka dhan inuu jirkaaga ugu go-naado laakiin 60-70 kiilo aad tahay qof caata aad tahay markaa jaakad huuriyaan camal gashitid waxaa lagu maleynaa inaa weligiis birta qaadin soo marka maxaa ka faa'iideysaa inaa sanadka dhan saas aad okay samarka waa garanay waxaa laga yaabaa inaa dabaal aadaysid maybe inaa banaanka kubad ku dheeraysid maybe inaa laakiin qabobkan winterka jiro oo jaakadahan waaweyn la xiran dhar waaweyn la xiran maxaa ka faa'iideysaa inaa macnay 60 kiilo aad soo aan midaas ayaa ku fikiray inaan kiilo isku daro waqtiga qabowaha uu jiro kadib maadhow markuu winterka soo dhawaayan barafka dhamaado winterka dhamaado iska dhimo kiilooyinkii baruurta ahaa inta baruurta ifuush iska dhimo markaas sababtoo ah markaas waxa ii soo haraya muruq nadiif ah waqtiga samarka anoo muruq nadiif ah jirkeyga samarka hore samarkan farqi weyn noo dhexeeya ayaa la arkaya mar badanna waa niidsii dadkii channelkeyga ku xirnaay videoyo hore ayaa niidsii samarkii hore iyo samarkan farqiga u dhexeeya marka samar walba jirkaaga uu isbedelayaa ama waqti walba jirkaaga uu isbedelayaa haddii aad Caring iyo Biochanical samaysid kiilo isku daris iska dhimis aad samaysid midda kale waxaa baranaysaa jirkaaga siduu u shaqeeyo haddii aad barat jirkaaga siduu u shaqeeyo waxaa waaye wax dad badan ayaa caawin kartaa marka kiilo iska dhimista baranaya anaa isku bartay experience anaa khibrad u lahaa jirkayga siduu u shaqeeyaa bartay so beri qof kale waa caawin karaa sida aan ii shaqeyso oo sheegi karaa qofkaas waxa uu tari kartaa laakiin haddaa weligay kiilo iska dhimin weligay le murqal iyo dhisay uma sheegi karo qofkan inaa hilib si liskaga rido beri topicaas ma ka hadli karo si hilib liskaga rido so marka waa muhiim inaad jirkaaga siduu u shaqeeyo baratid adina waa ku wanaagsan tahay so saddexdaas waxyaalood ayaa waa muhiimad u sameeyey haddii inaad isku darto kiilo rabtid koodir waxaa muhiim ah inaad baratid si liskaga rido sababtoo ah dad badan waxaa arkay hadda kiilo markay isku dareen kiilo iska dhimista aan aqoonin so meeshooda ay taagan yihiin way buuran yihiin ama waxaa waaye zaid ayaa hilib badan ayaa saaran ama murqahooda ma arkayaan definitionka ayaa ka maqan maxaa yeelay awalka hore maysan aqoonin
si hilibka la iskaga rido waxay kaliya barteen si hilibka la iskugu daro hilib isku darista waa fududahay cunto kaliya cunto badan aa cunaysaa jiibka taga kiilo badan aa qaaday intaas waa muhiim laakiin hilib iska dhimista waxyaalo badan u baahan tahay inaad macronutrient ka baratid inaad baratid calorigi maalinkii laga rabo inta uu ahaa inaad baratid grams protein grams fat grams carbohydrate inta laga rabo inaad baratid waxaasna inaad baratid si hadhow markaa kiilaas ka dhimaa dhahdid waxaas kugu fududaadaan haddaadan aqoonin intaas way adkaanaysaa so marka waa ka hadlay faa'iidada ay leedahay haddii channelka haddaa ku cusubta wax la sameeyo waa taqaanaa subscribe like asxaabta guys peace out